marka ugu horeyso waxaan igu salaamaa tahiyatul islaam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalahayga qaaliga mar walbo waxaad maqashiin codkeygii muuqaalkeygii weli ma arkin. maanta waxaan jeclaystay inaa oo muuqaalkeygii oo niisoo bandhigo anigoo matali jiri mukulaalaha. maanta waxaan jeclaystay inaa oo story niisoo bandhigo maadaama oo guryaha karantiilka jiro oo dadkii dhan guryaha lasoo wada fadhiistay. waxaan jeclaaday inaa storyda nila wadaago. walaalayaalo ha iga baqiilina subscribe, like, share iyo commenti hoos inaad kusoo qortid, gambaleelka inaad oo furto sidii wixii fiican usuubiyo sidaad u aragtiin. waa kana sheekadii iga khiblooda. sheekada oo nii sheegayo waxay tahay wiil yar oo wax deganaya xamar oo dabaal inas u tago rabo xamar weyne. marka wiilkii waa soo baxay, waxaas imaaday badda xamar weyne tan oo la dhaho fiinta. asigana dabaal ma kasaayo. marka wiilkii waxaas arkay cunug oo asiga ka yar oo fiinta koraayo kasoo boodaayo oo bii dalaq dhahaayo dabaalinayo. marka abba ahaatay waa fiiri wiilkii waa fiiri. marka waxaas wareysana marka wiilkii yaray igaariyaa waa isdhahay meeshaan oo adigu dabaalinoos ma dheer tahay. wiilkii waxaa isdhahay ma dheero. marka wiilkii waa shakii waxaa isdhahay walaalo meeshaan haddii dheereen joogsa baa isdhahay istaag. wiilkii waa istaagay gacmihi istusi waa kana intaan waa isdhahay meeshii ma dheero. marka wiilkii kale wiil waa shakisan yahay. waxaa isdhahay walaalo meeshaan ciid iga soo qaad. wiilkii yarayska waa muuday waxaas galay saidka oo badda hoos ma aadooya aslugiisa waa muuqda. saidka waxaas ka soo qaadaa caro caras uu soo qaadi. walaalkeyga waa kana isdhahay inaad dheereen. marka wiilkii maadaama uu caradii la tusi baasha waxaa isdhahay marka okay waay waa la geli karaa. markaan wiilkii markaa sidiia bismillahi raxmaan raxiim talab isku dhahay meeshii intaas galaa fiintiyaas gali waa celihaayan ma laha. marka ninkii waa socda hoosna waxaa laga sheegayay wax oo mas oo kasha iyo wax kuwa la dhaha hoos mas oo kale degtaan meeshaas fiintaas. rijaal biyaas daldali biyaas daldali as daldali waa degta alaa kuli xaal. markiis degtii waxaa isku soo istaagaa alaabtii oo mastii iyo kuwii isku soo istaagaa lugihii markii oo check isku soo siiyo support soo siina soo riixa kor. waa soo rafana ninka nafahaas mugtay waa soo baxaa qoorta soo dhiibana walaalihiis isku qaylina. marka oo meelaas malaay u gagaadooyin hebelaas leeyahay qof yaa maqlaa tolobka haddana waa gala haddana saacadaas ku soo maqnaaha waa soo rafana soo indhaa banaanka kasoo baxay qoortees soo dhiibana haddana hebel waa qaylina wax maqlaaya mal waa gala haddana soo rafana waa soo xoogsana waa soo baxa adi ilaa 7 jeer oo kale waa galgalaa gudihii. lultimo ilaahay waxaa kusoo shafeeca mugtay. marka waxa waaye mar oo isdhehina jira maanta intay ku ogtahay lultimo bis ninkaan rajo ma lahayn meeshii markaas qoorta soo bixi isqaalibo wax uu caawinay dhanba maba heleenin. marka 7 oo kale markaas qoorta soo baxsaday wiil oo dabaalanay oo yariis agta ka soo mari ayuu asigoo soo baxay. waxaa sameeyey wiilkiias dhab siistay oo ku taaqsaday marka inaa isku gadiyo oo isku baxsado. waxaa sameeyey wiilkiias kimbiya leemano si biyaas ku kimbi korkiisas ka soo boodi jamashiyaas soo qaqaribsaday. marka asagoo dhiigaayo oo jamashiyo oo meel ahaan dhan gacmaha oo kasoo jajexdo dhiigiis qubanayo meeshii soo kori. markaad ka soo baxay marka wiilkii oo gudaha asgiliya soo baxay meeshii oo qeelinayo
أبا والواحد اللي سو خيلنا نكان خيل بس دقيسنا الحمد لله سليمان وهذا بنو الله الحمد لله وحس هذه ركيسي السوقات ولا لي صدا مع سلامة مسؤولين أسيقول له مركل ما دت أمينة ماشى سكلوجي مسكين بريس كأذي مركا وإنه شيكو كلا أنك يو إذنك مع السلامة